Assalaamu calaykum akhyaarta. Maanta waxaanu ka hadlaynaa saadaalinta nolosha mustaqbalkaaga ama noloshaada wax ay noqon doonto. Badanaa dadka cilmi nafsiga ku takhasusay waxay yiraahdaan qofka noloshiisa waxay go'aaminaysaa 10ka sane ee soo socota, waxay go'aaminaysaa 10ka sane oo hadda uu haysto. Haddii 10kan sano ama 5tan sano oo hadda aad haysato haddii aad ka faa'iideysan, waa hubaal inaad luus-garayn doontid ama nolosha 10ka sane ee kugu soo foodla inaad aad noqon doontid qof waxba aan haynin, qof noloshiisii qayb ka mid ah luus-gareeyay ama ku fashilmay noloshiisii inaad noqonaysid. Marka waxaan kula wadaagayaa xaqiiqadu waxay tahay haddii aad rabto inaad noloshaada inaad saadaaliso oo si dhab ah aad u saadaaliso, waa inaad ka faa'iideysato waqtigaagan hadda aad haysato. Waa inaad ka faa'iideysatid si aad kan soo socda si aad u rajaysid mustaqbal wanaagsan, nolol wanaagsan haddii aad rabto inaad ku noolaato. Waana xaqiiqo dhab ah oo haddii aad hadda seexato oo aad ka faa'iideysan waqtigaaga oo aad camal la'aan mar walba aad noloshaada aad ku dhammaysato oo aad iska seexato oo aad noqotid qof fadhiid ah, aad noqotid aan waxba qabsanin, mustaqbalka iyo noloshu qolkaaga kugu soo doonan mayso, sariirtaada kugu imaan mayso. Noloshu waxay rabtaa ma ogtahay halgan bay rabtaa, noloshu waxay rabtaa dadaal bay rabtaa, noloshu waxay rabtaa wadooyin badan in loo maray rabtaa. Marka haddii aad nolosha aad ka faa'iideysan waqtiga aad haysatay, haddii aad ka faa'iideysan, waa hubaal nolosha waad luus-garayn doontaa, noloshaada qayb ka mid ah waad luus-garayn doontaa. Waa sida ku dhacday dad badan oo Soomaaliya ay la kulmeen marka ay noloshooda ay 10 sano 5 sano ay khasaariyeen iyagoo waxba aan qabanaynin, iyagoo waqtigooda intaas wax maalayacni ku lumiyay. Kadib 10 sano kadib 5 sano kadib qof walba markaa wareysatid wuu shalaynaya, wuxuu leeyahay waqtigeygii kama faa'iideysan, fursadaas aan haystay maalintaas wax badan baan qaban karay, maanta laakiin waa kan waxyaabo badan baa iska garab yaalla, waxyaabo badan baa iga kala daadsan, mid aan haleelo garan mayo. Ma kanaan qabtaa, ma shaqeeyaa, ma waxbaan qabsadaa, ma waxbaan bartaa, qofku noloshiisa waxay buuq bay ku noqonaysaa, qofku noloshiiba ciriiri ku noqonaysaa. Haddii laakiin noloshaada aad ka faa'iideysatid waqtigaaga aad go'aamiso 5tan sano waxaas qabo, waxaas baro, jaamacadaas dhamee, waxaa qabo 5tan sano shaqee, waxaas qabo 5tan sano kala guurso, waxaas samee. Haddii nolosha aad system aad ku wadid noloshaada, noloshaada waxay noqonaysaa mid kuu qorshaysan, noloshaada mid aad saadaalin karto. Wixii qadar ah waa qadar Rabbi, qadar Rabbi lama diido. Mar walba qadartu waa wax xaq ah oo way jirtaa. Qadartu way timaadaa haddii adigoo dadaalay aad wax weydo waa iska qadar, laakiin waa hubaal mar un baad helaysaayo. Ilaahay Rabbi Subxaanahu wa Tacaala qof muslim ah oo dadaalay ama qof walbo dadaalaba Rabbi Subxaanahu wa Tacaala ma qadiyo. Rabbi Subxaanahu wa Tacaala wuu jecel yahay dadka dadaala, wuu jecel yahay qofka hadduu dadaalo oo noloshiisa uu la jaxartamo oo wax badan noloshiisa uu qabto. Ilaahay wadada guusha toosh buu kugu ifinaya, wuu ku tusayaa, ma garat. Marka waxaan kula wadaagayaa haddii aad u baahan tahay inaad noloshaada aad saadaaliso, aad ogaatid waxa aad mustaqbalka noqon doonto, waqtigaaga aad haysatid ka faa'iideyso, waqtigaaga ha dayicin. Haddii waqtigaaga aad dayacdo, ogow noloshaadana waxa la saadaalin karaa waxay noqon doontaa qof aan waxba haynin, qof nolosha ciriir ku noqon doontaa. Waxaan filayaa muuqaalkan inaad ka faa'iiday weliba nolosha sida loo saadaalin karo. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe noo saar. Mahadsanid.